aynu ku bilownay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa magacaabay 3 wasiir oo cusub. Digreeta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa duhurnimadan maanta waxa lagu magacaabay 3 wasiir oo cusub oo ka mid noqonaya xubnaha golaha wasiirada Soomaaliya. 3 wasiir ayaa waxa ay yihiin 3 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya waxaana mar kale loo huuyay xilalka wasiiro taas oo qayb ka noqonaysa tirada xildhibaanada ahna wasiirada ka tirsan xukuumadda si hadhow xukuumadda culaysaad kala duwan marka uu soo food saaro difaac ay ugu noqdaan. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya xildhibaan Aadam Isaaq ayaa saxaafadda u aqriyay digreetada magacaabista 3 wasiir maanta lagu magacaabay. maanta oo ay taariikhdu tahay 7 bisha Abriil sanada 2019 wareegto ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya ujeedo magacaabid wasiiro markuu arkay qodobka 97 faqradiisa 3 ee dastuurka ku-meel gaarka ee Soomaaliya markuu arkay qodobka 98 faqradiisa 2 xarafka a iyo ba dastuurka ku-meel gaarka Soomaaliya markuu arkay qodobka 100 xarafka a ba sa dastuurka ku-meel gaarka ee federaalka Soomaaliya markuu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaala xukuumadda federaaliga Soomaaliyeed markuu tixgeliyay talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu garwaaqsaday baahida loo qabo magacaabida wasiirada wuxuu magacaabay qodobka 1 waxa mas'uulka loo magacaabay xilka kor ku qoran wasiirka arrimaha dastuurka waxa loo magacaabay mudane Saalax Axmed Jaamac wasiirka shaqada iyo shaqaalaha waxa loo magacaabay mudane Sadiiq Xirsi Warfa wasiirka tamarta iyo biyaha waxa loo magacaabay mudane Fawziya Maxamed Sheekh wasiirada cusub ee la magacaabay waxa la farayaa inay si degdeg ah ula wareegaan xilalkooda. Saalax Axmed Jaamac oo laga dhigay wasiirka dastuurka Soomaaliya waxa uu horay u hayay xilka wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada balse waxa loo magacaabay wasiirka dastuurka halka Sadiiq Warfa oo ahaa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo aan wasiirada kamid ahayn laga dhigay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada halka sidoo kale Fawziya Maxamed Sheekh laga dhigay wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha kadib markii xilkaasi uu horay isaga casilay madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen xilligii uu ka tirsanaa golaha wasiirada Soomaaliya. dadka oo dorso siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in tani ay muujinayso inay sii kordhayaan tirada xubnaha xildhibaanada haddana qabanaya xilka wasiirada ka tirsan xukuumadda. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goordhow u ambabaxay dalka Mareykanka halkaas oo ay kaga qayb gali doonaan shir maalmo socon doona oo looga hadli doono arrimaha ku aadan maaliyadda iyo deymaha cafinta Soomaaliya.